السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد شيخ إبراهيم كنياوي ريا ما أها والنولا أنا بشكل جلسين با غير فيسبوك غير يوتيوب سوشيال ميديا runtii aad baan idin jeclahay laakiin idinku ma aqaan waxaad igu necabtihiin noloshaad igu disheen anna waxaan rabaa inaan idin nooleeyo qulubtiina inaan nooleeyo adduun iyo aakhira inaad guulaysataan aan doonayaa xasan aadan samatar ayaa wuxuu dhihi jiray nin aad kabihiisa tolaysid ayaa adigana kafantaada tolaaya maxaa sidaa idinka yeelay la yaab ma laha rasuulkeenaa noo sheegaya sala allahu calayhi wasalam oo dhahaya saacaddu dhici mayso ilaa ay idinkaga timaado maalin gacantu idin taagan tahay ii dhiib maxaa laga helaa maxaan ka helayaa oo qofka uusan u aaba yeelaynin waxa gacantiisa soo qabanayso wuxuu qorayo wuxuu kasbanayo ma xalaal baa mise waa xaaraan waqtiga ayayna joognaa inaan loo kala aaba yeelaynin dad baa hadda quud iyo hunguri waxay ka raadsanayaan youtube-ka tigta yare loo siinayo hebel baa la dilay hebel baa dhintay hebel baa wax dhacay hebel baa sidaa noqday tigtaas yar ya iyo viewskaas ayay quud ka raadinayaan laakiin eeg meesha quudka idinka galay social media ya halkuu ibliis quudkiinii geliyey xumi iyo weynaan inta ay la eg tahay dembi inta ay la eg tahay xabiibkaa dhahaya sala allahu calayhi wasalam isagoo la hadlaya dadkii saxaabada wuxuu dhahayaa ma idin sheegaa dembiyo la gala kuwa ugu waaweyn kuwa ilaahay ka carooda ma idin sheegaa haabay leeyihin noo sheeg wuxuu leeyahay waa ilaahoo loo sharig yeelo waa waalidkoo lagu caasiyo wuu fadhiyey sidaasuu u fadhiyey markaasuu soo fariisanayaa wuxuu rabaa inuu sheego arin aad iyo aad u ballaaran oo kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ah oo qofka haddii uu sameeyo oo uusan ka toobad keenin saacaddaa uu dhinto cadaabkii la geynayo wuxuu yihi alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur waa iftiraha iyo been abuurka waa been abuurka iyo markhaati beenaalaha warka beenta la sheegayo waxa la qorayo iyo waxa lagu hadlayo iyo weliba waxaa ku dembi ah kuwa sii sheegaraynaya meeshaasaa maanta quudkeen eeg inta dembiyaad isku darsateen hadalkan yar ee aad saaka soo qorteen caadana idin ahoo mar walba aad qortaan ee aad dadkii qalbiyada wanaagsanaa malaayiin ruux aad murug uurkoodii ku geliseen reer social media eeg xumida hadalkaa waa hadal yar sheekh kenyaawi oo saaka lagu dilay oo ay dabley ku dishay xaafada degmada cabdulcaziiz allaha u naxariisto dhibka ay leedahay kelmadaa yar bal maxaad ka helaysaan imisaa senti ayaad ka helaysaan eeg sentiyadaa yar xaabadaa yar ee youtube-ka aad ka qaadanaysaan waxaad ogaataan cadaab waxaad ku gelaysaan 70 sano loo sii soconayo waxaa iigu sii daran jahliga dadka kelimadaa qoray waxay ku qoreen ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxay qirayaan inay addoomo ilaahay yihiin waxaan nahay addoomo alle ilaahay baana u noqonaynaa marka ay qoreen ayay haddana hadal beena sii qoreen war hadalkan waa hadalka haddaydan ka toobad keenin waa hadalka markaad ilaahay u laabataan uu maxkamadda idinku saari lahaa jahanamana uu idinku geyn lahaa laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa idfac bilati hiya axsan waa tii la yiri waxaan ilaahay ka baryayaa waan idinka fiicnaanayaa anigu waxaan ilaahay ka baryayaa ilaahay inuu idin cafiyo waxaa iigu sii daran gabadha walaasheenna ah nayrus oo aan filayo u badinayo inaad ku been abuurateen oo aad sawirkeedii soo saarateen commenteska markaan akhrinayay inta cay iyo inkaar ku dhacaysa gabadha inaanay ogeyn baa laga yaabaa ummad badan baad ku been abuurateen xaaraan badan baad ku cunaysaan uur badan baad murug geliseen allah idin cafiyo dadkana waxaan idin weydiinayaa inuu idin cafiyo waan idin cafinaye idinkuna joojiya been abuurka oo ka fiirsada waxa aad cunaysaan uurkiina aad gelinaysaan iyo waxaad qoraysaan waa wax idinka haraya oo maxkamada idinku saari doonee allah idin cafiyo waan idin cafiyey joojiya beenta barnaamijku waa cafi walaalka